gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Waraabe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa socdaal dheer ku galaabiciyay deegaanada hoos yimaada degmada Salaxley si ay u soo kormeereen goobaha diiwaangelintu ka socoto bulshadana ugu wacyigeliyaan qaadashada kaarka codeynta. Gudoomiyaha ayaa waxa socdaalkan ku wehelinaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga u cid Xildhibaan Cumar Jaamac Faarax, xogayaha guud ee xisbiga u cid Sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen, Xildhibaan Siciid Curay oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka Hargeysa iyo waliba xogayaasha xisbiga u cid iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa markii ay soo gaareen magaalada Salaxley waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan degmadaasi. xubno ku hadlayay afka dadka degan deegaanadaasi iyo waliba degmada Salaxley ayaa kelmado soo dhaweyn halkaasi ka yiri. halkan anoo ku hadlaya afka gudoomiyaha gudida qolbolole xukunta degmada Salaxley soo dhawaada si qiimo leh ayaan idin soo dhaweynaa boqolkiiba boqol ayaan idin soo dhaweynaa walaalayaal. waxaan idin soo dhaweynaa si kalgacal leh oo qiimo leh aad iyo aad qiimo u baan idin soo dhaweynaa. wuxuu yiri waa sugaynaa maysa soo simay ninkii geela u heesay wuxuu waa sugaynaa maysa soo simay. maanta waa isdiiwaangelintii wafdi ballaaran bay nala joogo horkacayo gudoomiyaha xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe garee qolbolole waa deegaan ballaaran oo aad iyo aad u ballaaran. waxaan filayaa deegaanka qolbolole waa deegaanka ugu codka badan ilaa iyo marka ilaa maca degmada Salaxley marka la yiraahdo waa deegaanka ugu codka badan. waayahay deegaanka waa in laga hadlaa cidda joogta ee markaa joogta ama gudi ha noqoto ama cid dusha kaga timiyo deegaanka ha noqoto wayna baahideeda ka hadashaa. maalba dhawato waan ku hadalay baahida deegaanka aniga iyo rag kale Hargeysa ka yimi gudoomiyaha degmaduna wuu ka hadlay wuxuu kaga hadlay wax baahi meesha taale oo markii hore ballanqaad ahayd oo xukuumaddu qabatay ayaanu ka hadal oo gudoomiyuhu ka hadlay. baahida waxa ka mid ahaa iskuulka stationka balliga fiigi waxyaabo fara badan isla markiiba dawladdu way ka garowsatay. laakiin sana nasiibdarka rag halkan ka soo jeeday ee ceelka ugu jiray ee ka mid ahaa ragga ahaa mas'uuliyiintii ahaa xisbiga ahaa ka soo jeeday deegaanka way dhibsadeen baahida deegaankiisu uu ka cawday way dhibsadeen. degmadii bay iska hor keeneen gudidii waxay iska hor keeneen boolojiis bixi bay yiraahdeen boolojiis ninkii baahida degmada ka hadlay waxay yiraahdeen boolojiis bixi haddaba wixii uu degmadiisa u doonayay isagoo gudoomiyihii degmada ah ayay yiraahdeen boolojiis bixi waxaas waxay qabta ma dhammaantiin aad iyo aad baa u salaamantiin. maanta waxay noo yimi Faysal Cali Waraabe waa aragtaan ujeedada loo socdaana waxa weeyaan in kaarka la qaato oo dadku muxuu haayay rasaasta qaato hadhow wuxuu iskaga celinaa dadka. Faysal Cali Waraabena dee halkan looga sheekayn maayo waa gobolkiisii isagaana u dhashay wixii cod soo baxana isagun baa leh. marka waxaan leeyahay horta kaarka in la wada qaato diyaar ma unay. Faysal Cali Waraabena wuxuu inaga mudan yahay waxa laala wuxuu halka ka doonaya sankayna kaga tolantay. marlaadka waxaan ma hadnaqaynaa waftigan uu hogaaminayo gudoomiye Faysal Cali Xuseen iyo xubnihiisa kale dhamaantiin waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi dirhan iyo gacmo dirhan taladaas ay la siiyeen waa qaadanaynaa. waxa sidii sheegaynaa gudoomiye halkan aanu joogno iyo dhammaan xuduudka oo dhan san la socotaan ma jiraan sanaaduqdi dadka la diiwaan gelinayaana waa dad ka fog halkan. waxay u baahan tahay in laga hawlgalo si loo keeno maalmaha dambe xuduudaha. reerina guuxa aad iyo aad baan u salaamayaa soo dhaweyntiina iyo walaalnimadiina gacmiina furan ee ku soo dhaweynaysaan gudoomiyaha iyo waftigiisa oo socda. kulay taraaqna waan oo dhaafna bari baan u soconnaa laakiin labada kelmadood la iska daba maray diiwaangelinta haddii aan yar idin ka siiyo diiwaangelinta horta bil bay soconaysaa sideedaba. diiwaangelinta marka imaka toddobaad ay socoto meelaha goobaha la dhigay waa la soo rarayaa diiwaangelinta waa la idin soo rarayaa. meel kastoo ka fog diiwaangelinta waxa ballanteedu ay tahay in la idin soo raro
oo marka halkaa wixii laga diiwaangelin in la soo raro diiwaangelinta haddana wixii ka fog aan soo gaari karayn goobaha loo soo rarayo ama goobaha ima ka socoto codsigeeda ayaa laydinka doonaya si gaadiid loogu soo qaado laydin keeno loo soo raro waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan Siciid Cudey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga UCID xildhibaan Cumar Jaamac Faarax xogayaha guud ee xisbiga UCID Sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxa naloo socda gudoomiyihii xisbiga UCID mudane Faysal Cali Xuseen xisbigii halkan laga lahaa xisbigii halkan soo saartay xisbiga halkan lihi wuxuu u qabtay deegaanka daanigaba waa igu faantaan oo xisbiga ay soo saaray siyaasiyiinteenna boqolkiiba 60 ayuu soo saaray xisbiganu xisbiga boqolkiiba 60 uu soo saarayna deegaankanu ka soo jeeda ta meeshan taallaa waxa weeyaan 10 November 2017 ayaa madaxweynaha magaaladan ugu dambeysay maalinta xadkeedii ka doonayay miyaa aragteen miyaa dib aragteen wadada aynu dhisannay ee halkaa ku taalla ee aynu inagu lacagteeda bixinay waxaynu xaq ugu lahayn inuu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cashuurta inaga qaado inoo dhiso laakiin inaga ayaa isku tashanay oo dhisannay marka ay gabnada waxba ka soo bixi weyday ceelka gabnada ah ay waxba ka soo bixi weyday sinaad hagaagsan ma haysano dhakhtarka alaabta aanu keennay sidii bay u raranto dhakhtar waxa loo waayay inay wasaaradda caafimaadku soo dirto dhakhaatiir ka shaqaysa iskuulka maalintii la idin yimi waa ogeydeen nimadii yaryaraa marakaneecooyinka ay ku jiifeen innagu miyaynaan qaranka ka mid ahayn oo inaan u soo dagaalamin oo inaan xoraysan cashuurteennii meeday iminka waxay gaadhay heerkii bedeluu laakiin madaxtooyadu hor taagan tahay maanta xeer ka qabya ah doorashooyinka ma jiro si sharci ah ayay uga soo baxday golaha wakiilada diyaarna ay u tahay iyadana waa in xeerkeeda loo hoggaansamaa sharcigu shaqeeyo oo la ixtiraamo ayaannu rajaynaynaa waxaan idiin rajaynaynaa guul reer Salaxley si mugla isu diiwaangeliya tiradiinna iyo tayadiinna muujiya markaasaad isbeddel la iman kartaan oo xaqiijin kartaan inaad hoggaanka rabtaan dooran kartaan ugu horrayn waxaa mahadle allaha weyn ee waaxidkaa ee inagu kulmiyey maanta goobtan nabadgelyada iyo amniganayna siiyey iimaankanayna siiyey baa mahadle mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa wafdiga aan ka socdo marka laga yimaado oo guddoomiyuhu kow ka yahay dhammaan deegaankan reer qoolbuulalle sida wacan ee milgahale ee sharafta leednoo soo dhowayseen ayaan aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe waxa weeye waa dhowr arrimood mid waa ta horeysa diiwaangelintii baa socota diiwaangelinta hadda la bilaabay socota waxa weeye waxay ka markhaati kacaysaa degmo kastaba deegaan kastaba dadka degan intuu leeyahay taa marka la ogaado ayaa horumarka lagu fadhiisaya oo la ogaanaya in iskuul bahantay secondary ma qaadi kartaa jaamacad ma yeelan kartaa dawladnimo ayaa wax lagu noqdaa qaran qabiil lagu ma noqdo waxa loo tartamaya maaha kursiga hadii nahay beeshan ku tartamayna kursiga oo hayo professor torno madaxweynaha la tartamayna kursigan doona waa ka madaxweynaha kursigan doonayna ma ogtay taa maskaxda u sheega marka ka haysatid adaa madaxweyne adaa wasiira ya marka waxay yeelisaan isjeclaada waxa way horta halkan waan ku dhaartaayo talaya qorbulada baa ilaa markaa shaqaata boogta talaya qorbulada deegaanka degno qorbulada wuxuu kaga yaalaa halku kursi geeli kaga yaalo ayuu kaga yaalaa alxamdulillah rabbil
xusbigu waxa weeye waa awoodda lagu gaaro magaranaysaa wasalaanka awoodda lagu gaaro marna waxa tahay madaxweynihii marna kursi qalqalkaad haysataa oo dad saddex nin dalka u taliya ee tala dalka la weydiiyaa waa saddex xusbaa weydo taladii baad ku jirtaa marka nin dooniya inuu wasiir noqday nin madaxweyne dooniya masiba ugu wada miisaysan oo iswareerkiya intii uu socdaalkani socday gudoomiyuhu waxa uu agab ciyaareed ku wareejiyay qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee degmada Salaxley